Awood aan la dhayalsan karin oo Sky Blue ay ku doonayso ku guuleysiga UEFA Champions League ayaa xalal lagu arkay gudaha Spain, gaar ahaan garoonka Santiago Bernabeu. Ciyaar xiiso badneed oo ka tirsaneyd wareegga semifinalaha ee UEFA Champions League xilli ciyaareedkan ayay Sky Blue ku wajahday gudaha Isbaanishka naadiga waddankaasi ka ciyaarta ee Real Madrid ama Los Blancos-ka, waxaana Manchester City xalay soo bandhigtay ciyaar ilqabad lahayd. Dhan walba oo ciyaarta ku saabsan ayay Manchester City ku sareysay, waxaana Real Madrid ay u ciyaaraysay sida naadi aan gurigeeda joogin. Walow Real lagu sheegay kooxaha inta badan guryaha kooxaha ay ka soo horjeeda iyadoo natiijo fiican ku soo hesha, haddana xalay waxay ahayd kubad iyo sidoo kale banooni aad u qurux badan inay labada kooxood soo bandhigeen. Qaybtii koobaad ee ciyaarta Real Madrid waxaa u suurto gashay inay hoggaanka qabtaan. Vini ayaana kubad xoog badan ayagu markaasi asagu shabaqa raacsiiyey oo shabaqa dhex dhigay, balse Kevin De Bruyne ayaa isna kubad sawaariikh ah markiisa shabaqa la beegsaday, tii oo suurto gashay in ciyaarta gool iyo gool ay ku soo idlaato. Waxaana Real Madrid loo sheegay sanadan la tusayna dunida oo idil ay ku baraarugtay in Manchester City sanadan ay ka go'an tahay ku guuleysiga UEFA Champions League oo iyadu markaasi awood xoog badan ay soo bandhigayso. Dad badan ayaa qabay in Manchester City ay ku ciwoobi karto garoonka Santiago Bernabeu oo xalay taageerayaashiisa ay ahaayeen kuwo xad dhaaf ah, halka kuwo kalena ay markaasi lahaayeen goolka Real Madrid laga dhaliyay kubaddu banaanka ay u baxday oo garsoorka ayaa u hiiliyay Manchester City. Si kastaba ha ahaatee, Arbacada soo aadan ee isbuuca soo socda dabayaaqadiisa ayay garoonka Etihad Stadium labadan kooxood dib fooda isugu geli doonaan, iyadoo markaasi natiijo kasta oo goolala ama natiijo kasta oo badisa kooxdii badisa ay ku soo baxdo, barbaro kastana iyadoo markaasi waqti lagu dari doono oo ilaa iyo la kala baxo ciyaarta la ciyaari doona. Waxaa sid mudan in xilli ciyaareedkan uusan jirin wax ku saabsan gool away oo gool kasta oo laga dhaliyo sidiisa ayuu u xisaaban doonaa.